waxay maraysaa bahgariyo beeshii uu ka soo jeeday sayid maxamed cabdulla xasan ee sharafta badnay inuu ninkii bahgari ugu xumaa oo xumaantii dhagal-aan ku darsaday waa faatax wasiirka waxbarashada dowladdeegaanka soomaalida inuu isku dilo. waxaan la hadlaynaa lafta uu faatax ka soo jeedo oo reer xamar bahgari maanta haddii aad kursigii ku fadhidaan ma waxaad go'aansateen inaad dhulkii iyo beerihii bahgari aad xoog ku qaadataan, siligyadii kale ee bahgari laysaan, idinkoo fuleydnimadiina la wada ogyahay inkastoo nin geesi idinka dhashay oo madaxweynihii hore ee deegaanka cabdullaahi xasan luguur. haddana isaga mooye intiina kale far ayaa idinku godanaya haddii aad nasab tihiin si degdeg u soo celiya kiishashka qabandiga ee aad ka xadeen bahgari iyo beesha Tolomoge iyo beeraha aad walaaladiin xoogga kaga qaadateen. kadibna faataxan isku kiindire ee hubka idiin galay si aad walaaladiin u laysaan diida oo nadaaf ku dhaha. faatax waa xaaraami sina iyo fuxshi mooye aan wax kala aqoonin, waana nin cala alle ku dhacday oo dhaga tirtay. waxaana ku shaqaysanaya Mustafa Cagshar oo qaar dambaha marwada wadaageen. waan ognahay jilibka reer xamar bahgari inuu faatax dhagool miisaaniyadda xafiiskiisa ee sanadka 2013 tirsiga taariikhda Itoobiya idinka gaday 4 barjeex iyo 41 AK-47 kuwaas oo uu idinku booriyey inaad ku baabiisaan walaaladiin bahgari iyo Tolomoge. haddaba waxaan reer xamar oo idiin sheegaynaa inaad faatax dhagool uf tidhaahdaan talkiina la heshiisaan oo dakanaha uu faatax idin gelinaya ee uu Mustafa Cagshar dabada ka wado aad ka digtoonaataan. Mustafa Cagshar iyo inuu ayaa maray ka hadlayeen musharaxiinta xildhibaanada degmada Awaare, gaar ahaan musharaxa xildhibaanka federaalka noqonaya ayaa wuxuu Mustafa Cagshar beesha ciidagale ku yidhi musharaxa xildhibaanka heer federaal waxaa xaq u leh beesha ciidagale. dhanka kale wuxuu shir gooni la yeeshay reer Isaaq wuxuuna u sheegay inay si gildi u soo sharaxdaan musharaxa xildhibaanka heer federaal oo ay ka soo garab sharaxaan midka BB u sharaxana ciidagale, isagoo u sheegay inay kaga shuban doonaan oo uu reebi doono musharaxa heer federaal ee beesha ciidagale soona saari doono midka reer Isaaq ee gildiga kani waa daliilka ugu yar ee aan tusaale ahaan u soo qaadanayno qaabka uu Mustafa Cagshar isugu dhufto colaadna uga dhex abuuro beelaha walaalaha ee wanaagu ka dhaxeeyo. kal hore wuxuu isku dhuftay gacanweyne iyo bahamagan, reer Isaaq iyo Ararso, Amaadin iyo Waaskooshin, bahgari dhexdeeda, maalinguur dhexdiisa. waxaana hadda socda colaad oo isagu ka dambeeya oo ka dhaxaysa makaahil iyo mareexaan oo dhowr ruux iskaga diray tuulada qaleen ee degmada Shilaabo. colaadahani ma aha kuwa ka abuurmay khayraad wadaag lagu xuntamay, laakiin waa kuwa uu Mustafa Cagshar abuuro si uu shacabka dhexdiisa isugu mashquuliyo isna uu cadaadiska kor ka haysta sabab uga dhigo. waa xeelad uu ku caanbaxay Mustafa oo shaqadiisa ahayd isku dir oo hal raari miisaaniyadna ku musuq wax kalena ha qabanin shacabkuna si aydan adiga kugu soo jeedsanin iyagu ha isku mashquulaan oo dhiigooda ha daadiyaan. dhiiggii reer Isaaq waxaa maanta tuubo ku shaqeeya reer Cagshar oo idinku shaqaysanaya. awey barre Ibraahim dadasawii sharafta badnaa Cagshar ayaa ceebta aad aragteen idiin soo jiiday. ogaada idinka ayaa ku ceebaysan waxa sameeyaan reer Cagshar, gurubsana idinka ayaa idin raacay. 25 degme ee Soomaali oo dhan eeganaysay reer Cagshar ayaa iibsaday bay noqon ee ogaada dhawaan ma ogeyn noqon mayso. magacii ogaadeen idinkaa baabiiyey, idinka ayaana halkaas dhigay maanta. markaad reer Cagshar iska qaban weydeen ummadana ka qaban weydeen Soomaali way idin ogtahay inaad tihiin dad sharaf leh reer Cagshar, gaar ahaan barre Ibraahim Cagshar ama haddii aad tihiin reer Daral Guleedba, waayo waxaa idinka dhashay Axmed Cali Daahir oo ah nin macquul ah iyo rag kale oo qiimo leh. isnaataan ummadana magaciina lagu duleeyo oo aad dulligaas aqbashaan ma ahayn, waayo intaas waad ka caqli ficil iyo karti badnaydeen. Soomaalina way idinla yaaban tahay ilaa hadda oo idinkan bay idin dhowraysaa
oo war idinka sugaysa dhabanada unbay haystaan dadku oo ay leeyihiin waraaway dhiiggii ficilkii damiirkii iyo kartidiina loogu sheegi jiray reer dalal guleed mise reerka mee allah baana looga bunbuunin jiray oo awalba dambaska ayay ahaayeen markay reer cagshar idinkii la dhashay ee u talin jiray sidaas idin dulaysteen maxaad u malaynaysaan ummadii kale war niman yahow bahdilka iyo heeryada dulmiga iska dulqaada baraaruga oo ummadana ka dulqaada nin la sugayow yaad sugi war nin la sugayow yaad sugi wasiirka waxbarashada deegaanka Soomaalida mudane Faatax Dhagool ayaa wuxuu sanadkan bilowgiisii magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya gaar ahaan xaafadda Karen uu ka gatay guri filo kasi ah oo uu ku iibsaday hantidan $325,000 oo dollar $325,000 Mareykanka ah taasoo u dhiganta 16,250,000 oo bir oo Itoobiyan ah gurigan filada qasriga ah ee sidaa u weyn waxaa u galay Faatax wakiilna uga ahaa nin lagu magacaabo Maxamed Yaasiin oo ganacsado ah waxaa kale oo ugu badan oo dabajeexyo iyo AK-47 isugu jira uu u galay jilibkiisa raaxamar ee bahgari si ay u laayaan jilibyada kale ee bahgari iyo beesha Tolomoge arrinta isweydiinta mudanse waxay tahay sawirada hoos idinka muuqda waxaa ku jira iskuul saqafkii ama jingadii ay dabayshu ka qaaday muddo dhowr bilood ahna ay ardaydu qoraxda ku baranayeen iyo geed hoosti mudane Faataxna dhowr jeer cabashada iskuulkaas loo gudbiyey ilaa haddana uusan wax jawaaba ka bixinin waxaa kale oo musuqa miisaaniyadda afintan ka qalooday shaqaalaha xafiiska oo maqlay inuu Faatax miisaaniyadii xafiiska ee sanadka 2013 ka siga taariikhda Itoobiya oo hub uga galay miisaaniyadda xafiiska beeshiisa raaxamar iyo inuu miisaaniyad intaas la ku iibsaday guryaha filada iyo qasriga ah